بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. maanta muuqaalkeena waxaan rabaa in aan niila wadaago sida WhatsApp-ka story-ga. haddii aan nin sharxo story waxaa la yiraahdaa WhatsApp-ka marka aad story-giisa sawir soo dhigaysid. hadda YouTube wuxuu leeyahay story, Facebook story-giisa daa ku tuso waa kan. Facebook badankiina waa isticmaashiin. haddii aad Facebook san u soo gashid kuwa inta ka muuqanay ayaa waxa la story, kuwan waxay soo dhigeen story, wax kuwa inta ka muuqanay waxa la WhatsApp Facebook story. Story-gan ayaa rabaa hadan inaan WhatsApp story wax dhigno. WhatsApp-ka markaan soo gashid WhatsApp-ka wuxuu leeyahay 3 qodob. qodobka ugu hore jaakis waxa la wadaa fariimaha ay dadku soo galaan ina meeshan ka aragtid, ama istustus waxa la wadaa istustuska macnaha ina wax soo dhigaysid oo dadka arkayaan, ama kaalis dadka wicitaankoodina inta ka aragtid. hadda halkaas qof ana wacay dadka wacdan inta ku soo safaayaan maanta wicitaankaas wax manaa gelin, laakiin anagu maanta xaramna ina weeshan ka barano sida WhatsApp istustuska aan wax fiican u dhigi lahayn. balaaskaas taabanaysa calaamada balaasta inaad taabatid waa muhiim. balaastaas ayaa taabanaysa inta wuxuu ku soo dhigayaa waxyaabaha muuqaalada aad macnaha sawirada ku jira mobilkaada inta ku soo dhigaya. ana hadda sawir ma taabanay, video taabanaya. video ayaa taabtay. videoga cam waa ku dhufanaya. okay, videoga markuu saan yahay inta waxaa loo talagalay inaad qortid video magac in loo bixiyo, tusaale ahaan Falastiin. video magac waa loo bixin karaa magaciisa inta qoraysa, ama taas waxaa la wadaa in aad qortid qoraal, inaad videoga qoraal inaad qortid sida Falastiin. videoga qoraalkiisa ayaa waxa la lahaa inta qoraal weyn oo qori kartaa saas Falastiin. okay, kan waxa la wadaa inaad ku soo noqotid kan. maanta waxaa filayaa inaan baranay sida WhatsApp-ka istustus fiican loo dhigto. waa mahadsantihiin. muuqaalka meeshas ayaa ku soo gagabeynaya. muuqaalkan haddii aad ka heshay u sii gudbi asxaabtaada. waa mahadsantahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.